soo dhowaada saaxiibayaal, anigu waan idin xiisay. Waxaan idinkaga sheekeynayaa qiso na dhex martay aniga iyo cudurka xun. Waa cudurka caalamka oo dhan argagaxa ku riday. Asagu waa kansarka, iyo sida aan u ogaaday inuu jirkayga ku jiro. Haddase nolosha anigu rajo miyaan ka leeyahay, mase cimrigaygu waa uu gaaban yahay oo mar dhow nolosha ayaan sagooti doonaa. Haddaba na keena si aad u ogaataan wax walba oo ku saabsan qisadayda. Midaasi ma isku waafaqnay. Aniga magacaygu waa Rasaan, waxaana jiraa 29 sano. Waxaan ka dhashay qoys basiid ah oo noloshooda ay meel dhexaad tahay. Tintaydu waa jaalle weyna dheer tahay, indhahayguna way cagaaran yihiin weyna qurux badan yihiin. Kanina waa ninkayga Waliid. Maanta waxaan anigu halkan u imid si aan idinkaga sheekeeyo qisadiina dhex martay aniga iyo kansarka, kaas oo aan ka cabanayay muddo dheer. Wuxuuna ku sigtay inuu noloshayda oo dhan burburiyo haddii aysan jiri lahayn naxariista Alle. Qisadaydu waxay ku bilaabanaysaa markii aan jaamacadda dhigan jiray, anigoo baranaya kulliyadda caafimaadka. Waxayna ahayd sanadkaygii 2. Maalin maalmaha ka mid a, anigoo jaamacadda ka soo baxaya, ayaa waxaa i hareereeyay dhallinyaro tuugo ah oo dadka dhibaateeya. Waxayna rabeen inay i garaacaan. Anigoo qaylinaya oo dalbanaya in lay badbaadiyo, ayaa waxaa noo yimid Waliid, wuuna i difaacay. Dhallinyaradiina wuxuu u dhigay cashar lama iloowaan ah, anigana wuu i badbaadiyey. Ayagina sidaas ayay ku carareen. Haddii aan afkayga beenta ka ilaaliyo, aragtidii koowaadba anigu waan ka helay asaga. Tintiisu waa mid madow oo dhaldhalaalaysa, indhihiisuna waa kuwo buluug ah. Asagu waa halyeey geesi ah, waxaadba moodaa inuu yahay aktar ka soo baxay filimaanta caalamiga ah. Muhiimaddu waxay tahay, anigu waan u mahadceliyey. Guriga ayaana aaday, laakiinse habeenkaas oo dhan waxaan ka fekerayay Waliid geesinimadiisa. Markaasi wixii ka dambeeyey anigu waan hurdooday, sidaasi ayaana ku hurday. Subaxdii markii la gaaray, markii aan doonayay inaan aado jaamacadda, ayaan aabbahay ku iri, "Aabe, waa inaad galabta jaamacadda iga soo qaado. Halkaasi waxaa jooga dhallinyaro doonaya inay i dhibaateeyaan, waxaana ka cabsanayaa inay dhibaato ii geystaan." Aabbe ayaa igu yiri, "Dhib ma lahan, aniga ayaa hadda ku qaadaya, galabtana waan ku soo qaadayaa." Aabbe ayaa gaarigiisa igu qaaday oo jaamacadda i geeyey. Markii aan jaamacadda soo galayba, waxaan arkay Waliid oo fadhiya oo isoo eegaya. Wuu soo istaagay xaggayga ayuuna soo aaday. Wuxuu igu yiri, "Rasaani, ma fiican tahay?" Waan la yaabay, waxaana ku iri, "Sideed magacayga ku garatay?" Kadibna wuxuu bilaabay inuu labalabeeyo. Wuxuuna igu yiri, walaashay ayaad isku fasal tihiin, ayada ayaana magacaada ii sheegtay." Waxaan u sheegay inaan wanaagsanahay. Markaas ayuuna ii sheegay in magaciisu uu yahay Waliid. Aniguna waan uga mahadceliyey wixii uu shalay sameeyey. Kadibna waan tegey, fasalka ayaana galay. Galabtii markii la gaaray, aabbahay ayaa ii yimid oo guriga ii celiyey. Muddo kadib, Waliid wuxuu bilaabay inuu ii soo dhowaado, ilaa ugu dambayn ka helitaankaygii uu isku beddelay jacayl dhab ah. Maalin maalmaha ka mid a ayuu si dhaba iigu sheegay inuu i jecel yahay, isla markaana uu iga helay sanadkaygii 1 ee jaamacadda. Aniguna sidoo kale waxaan u sheegay inaan jeclahay. Wuxuuna doonay inuu isoo doonto, laakiinse aniga ayaa diiday. Waxaana ku iri, "Haddii aad doonaysid inaad i guursato, waa inaad i sugto inta aan jaamacadda ka dhammaysanayo." Sanado badan ayaa ka soo wareegatay. Aniga iyo Waliidna jaamacaddii waan ka qalin jebinay. Asagu wuxuu noqday dhakhtarka cudurrada guud, aniguna waxaan noqday dhakhtaradda carruurta. Bil kadib markii aan jaamacadda ka qalin jebinay, Waliid ayaa isoo doontay. Aabbahay wuu oggolaaday, kadibna waan isguursanay. Maalintii arooskeenna, markii arooskii soo dhammaaday oo aan doonaynay inaan aadno gurigeenna, ayadoo farxaddu ay meel walba naga buuxisay, ayaa horteenna waxaa ka soo baxay gaari aad u weyn. Halkaasi waxaa ka dhacay wixii dhacay. Shil ayaan galnay. Aniga isbitaalka ayaa la ii qaaday, asagana sidoo kale. Aniga waxaa lay geliyey qolka qalliimada, maxaa yeelay xaaladaydu aad ayay khatar u ahayd. Laakiinse Waliid, asagu lugta ayuu ka jabay. Anigu
muddo dheer ayaan miyir daboolnaa. Kadibna waan soo kacay, waxaana arkay Waliid oo dhinacayga fadhiya oo ilmeynaya. Markaas ayuu igu yidhi, alxamdulillaah, haddii aad nabad qabto waad caafimaadaysaa, aroosad cusub ayaadna noqonaysaa. Markaas ayaa waxaa soo galay aabbahay iyo hooyaday oo uu la socdo dhakhtarkii ayaa i baaray, dhiiga kala duwan ayuuna iga qaaday si uu baaritaanno ugu sameeyo. Waliid ayaa igu yidhi, adigu 2 isbuuc ayaad miyir daboolneed. 2 isbuuc waxaan ku idhi, anigu ma dareemayn waxaasi, waxaan u malaynayay in shalay uu dhacay shilku. Maxaa igu dhacay Waliidow? Wuxuu igu yidhi, adiga waxaa kugu dhacay dhiigbax fara badan oo gudaha ah, biraha baabuurka ayaana kaa galay kilidaada bidix, sidoo kalena qaybta madaxa ee kore ayaa kaa jaban. Dhakhtarkii ayaa yidhi, ka leexda cabbaar ha hurudee. Markii aan soo miyirsaday ayaa waxaa ii soo galay Waliid, wuxuuna igu yidhi, rasaanay, arrin ayaan kuu sheegayaa ee ii ballanqaad inaad naftaada xakamayn doontid. Waxaan ku idhi, ii sheeg Waliidow. Wuxuu igu yidhi, rasaanay, markii uu dhakhtarku kugu samaynayay baaritaannada dhiigga ayuu ogaaday. Waxaan ku idhi, muxuu ogaaday Waliidow? ii sheeg. Wuxuu yidhi, asagu wuxuu ogaaday inaad adigu ka cabanayso kansar ku dhacay beerkaada. Waan iska ooyey, kadibna waan miyir daboolmay. Markii aan soo miyirsaday waxaan arkay Waliid iyo dhakhtarka oo dhinacayga fadhiya. Waliid wuu baxay, dhakhtarkuna wuxuu bilaabay inuu aniga ila hadlo, wuxuuna yidhi, soo dhowow rasaaney, anigu waxaan ahay Dr. Saami. Waxaan u malaynayaa in Waliid uu kuu sheegay inaad ka cabanayso cudurka xun ee kansarka ah. Markaas ayaan anigu iska ooyey, laakiin wuxuu igu yidhi, ha ooyin, asagu wuxuu ku jiraa marxaladihiisii ugu horreeyey. Inaad caafimaadayso ayayna u badan tahay, adiguna waxaad tahay dhakhtarad oo wax walba waad og tahay. Ilaahay ku kalsoonow, asaga ayaa caafimaadka haya. Hadalkiisu aad ayuu niyadda iigu dhisay. Markii aan ka caafimaaday xanuunkii shilka, Waliid iyo anigu waan sheekaysanay, wuxuuna igu soo qaaday mowduuca kansarka iyo inay tahay inaan hadda bilaabo daawada si uusan cudurkaasi jirkayga wax horumara ugu sii samaynin. Aniguna waan aqbalay, laakiinse waxaa igu dhacay wax aanan filanayn. Dhammaan dadkii aan isgaranaynay, dhammaan saaxiibaday, keliya waxay isoo booqan jireen maalmihii ugu horreeyey, kadibna dhammaantood way iga fogaadeen. Waxaa laga rabay inay garabkayga soo istaagaan, laakiinse ayagu way iga tageen. Mana aanan helin qof aan ka ahayn ninkayga iyo hooyaday, oo xitaa aabbahay asagu wuu iga fogaaday, mana uusan isoo booqan jirin. Maadaama ninkaygu uu yahay dhakhtarka cudurrada, asaga ayaa i daaweynayay. Markii ugu horreysay ee aan qaatay daawada kiimikada waxay ahayd mid aad u xanuun badan. Tintaydii quruxda badneed ayaa tartiib tartiib u daadatay, jirkayguna aad ayuu u daciifay. Waxay ahayd waqti aad u xanuun badan, muddo dheer oo aan qaadanayay daawada, isla markaana aan raacayay awaamirta dhaqaatiirta. Ugu dambayn waan caafimaaday, tintaydina sideedii ayay iigu soo laabatay. Isbitaalkiina waan ka soo baxay, waxaana kedis igu noqotay in aabbahay uu geeriyooday. Hooyadayna way ka fogaatay asaga sidii asaguba uu aniga iiga fogaaday. Asagu xilligaasi waa uu xanuunsaday, kadibna waa uu geeriyooday. Anigu hadda waxaan doonayaa inaan booqdo qabrigiisa. Anigu asaga waan u xiisay, waan iska ooyey. Anigu aabbahay waan cafiyey, maadaama uu ka gaabiyey daawadaydii. Waan iska cafiyey, alle ayaana uga baryay inuu u naxariisto, maadaama uu yahay aabbihii i dhalay oo asaga layga beeray. Dhanka kale saaxiibaday dhammaantood xiriirka ayaan u jaray. Saaxiibka aan garabkeenna ka weyno waqtiga aan dhibaataysanahay, uma baahnin waqtiga aan baraaraha ku jirno. Dhacdooyinkaasi kadib, aniga iyo ninkaygu waxaan furannay isbitaal weyn oo aan shirko ku nahay labadeennu. Haddana waxaan caloosha ku sidaa wiilkeennii ugu horreeyey, waxaana ugu magac diri doonaa aabbahay macaan. Ilaahay ha u naxariistee. Waxaan rajaynayaa in qisadayda aad ka hesheen, waxaana rajaynayaa in saaxiibadiin aadan ka fogaa doonina waqtiga ay dhibaatadu soo gaarto.
maxaa yeelay inaad waqti adag garab istaagto saaxiibka waxay caddaynaysaa heerka uu gaarsiisan yahay xiriirka idinka dhexeeya, asagana macno weyn ayay u samaynaysaa, niyadda ayayna u dhisaysaa. Saaxiibkuna waa midka aad hesho xilliga aad dhibaataysan tahay. Ilaa iyo halkan haddii aad nala soo gaartay, qisada waad dhammaysatay, laakiin ogow, kanaalkani waa kanaalka qisooyinka. Qisooyinku si aysan idiin dhaafin waa inaad kanaalka subscribe saarataan, hana iloobina inaad qisadayda like saartaan. Tan iyo kulanti dambe, nabadino. Subscribe saar si aad u hesho muuqaal kasta oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid.